in ay dumarku heshiis ka qortaan maxay ragooda heshiiskaas oo ah in maxay gabadh kasta ay ka qorato inuuna la guursan sababtoo ah qofkani markuu gabadha xulanayo ama marwadiisa uu xulanayo dee wuu ku qancay oo noloshu la wadaagay magaalada Hargeysa waxaa ku aqal galay lamaana cusub kuwaas oo arinta sheekadoodu ay tahay mid xiise gaar ah xambaarsan isla markaana ku cusub deegaanada Soomaalida lamaanahan ayaa kadib meherkoodii waxa ay kala saxiixdeen heshiis laba geesooda oo midba kan kale u noqonaya xayndaab adag hadaba arintan ay sameeyeen lamaanahan cusub ayaa waxa ka falceliyay dadka Soomaaliyeed lamaanahan cusub ayaa kala ah Amiin Sadiiq Axmed oo ku magac dheer Amiin Dalxa iyo sidoo kale marwadiisa cusub Habi Cali Maxamed waxaanu sheekadaasi ka wareysanay oo aanu la kulannay caruuska arintan iyo saxiixan sameeyay ee Amiin Sadiiq Axmed saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada waxa haystay lamaane wada galay heshiis laba geesooda heshiiskaas oo ah mid ku cusub lamaanayaasha ama dadka noqonaya bahwadaagta family-ga dhinacayga waxa fadhiya Amiin Sadiiq Axmed oo ku magac dheer Amiin Dalxa Amiin waa ninka saacadihii ugu dambeeyay aadka loo hadalhayay isaga marwadiisa cusub bal waxaanu ka wareysan doonaa dhacdada cusub ee ay soo kordhiyeen faa'iidada ay leedahay iyo saameynta ay yeelatay labadaba waxa weeyaan sawir aad iyo aad indhaha caalamka soo jiitay iyo geega Soomaalida Amiin adiga marwadaada sawir baad gasheen sawirkaas waxa ka muuqday inaad gasheen heshiis laba geesooda oo dadku baarkeen ma garanade wax kamarada dabada taagnaa inuu saddex geesood ahaa bal heshiiskaasi oo ah mid cusub muxuu faa'iido leeyahay heshiiskaasi waxa weeyaan kullay sawirka markii hore inaan saaxiibnay ayaa maxay nala socday laba inaan saaxiibnay ayaa nala socday anigii marwada kullay deetana sawirka niyadeedu aniga ku soo dhacay markii koobaad sawirka waxaan islaayn hab u gal laakiin aniga niyadeedu ku soo dhacay oo habkan inaan u galno director gareeyo saaxiibadayna ay igu kaalmeeyaan oo igu caawiyaan sidaas darteed heshiiskani wallahi waxa uu iska ahaa heshiis aad iyo aad u wacan oo aanu anigii marwadeedu aan wada qaadanay labadayda dhinac laakiin laba marxaati ay joogeen way maxay nila wadaagayeen marxaatiyadii laakiin kullay Soomaalidu waxa weeyaan dad iska faniyo waxay lahaayeen feedback ama jawaab celinta aan arkayay waxay lahaayeen waxa weeyaan shirkada midoobaya bal ma nala wadaagi kartaa hadii aad inuu nala wadaagi karto qodobo ku jiray heshiiskaas oo aan dadku warqad ma wada arkeen moogto warqad way foortay marka heshiis qodobadaasi ku jiray inta ku qorsan waanu garanay wixii nala wadaagi kartaa ma jirtaayo qodobo halkaasi ku xusnaa waan idila wadaagi karaa dabcan sababtoo ah waxa weeyaan kullay maxay anigii marwadaydu waxaanu isla qaadanay in aanu heshiiska galno heshiiskaas kullay qodobadii ka midka ah waxa weeyaan kullay waxaan ugu bushaareeyay kullay waxa weeyaan xaaskaygii marwadaydii maadaama qofku uu noloshii hore uu singalnimada ka soo baxay nolol cusub uu galay waxa weeyaan xaaskiisa inuu qadariyo tixgelin xurmo intaba way ka mudantay maadaama maxay uu qofku nolosha uu kala wadaagay waxaan ugu bushaareeyay xaaskaygu in ayna noloshayda ama maxay inta geerida ka dhiman in ayaduun maxay ay ila wadaagayso oonan gabadh kale la guursanayn oo ugu bushaareeyay waxa weeyaan dumarkuna waa takariye ay ugu jecelyiin ama ay raadinayaan banin aan la guursan markaas taas ayaan ugu bushaareeyay in aan gabadh kale la guursan ayadoo ay deeqday dabci ahaan diin ahaan iyo akhlaaq ahaan intaba bartana waan uga mahad celinayaa aad iyo aad kaliya Allah haddii aan kaga nimaadno inta qodobada aad ku qornaa heshiiska bal heshiiskan maadaama deegaanada Soomaalida oo dhan ku cusub yahay maxaad odhan kartaa faa'iido waa laga dhaxli karaa waxa laga dhaxli karaa heshiiskan aan annagu is oran karno waxaanu is oran karnaa waxa laga dhaxlayaa kullay xasilooni labadii qof in ay aad isku kalsoonaadaan is aaminaan ayadoo markii horeba maxay is aaminid iyo isku kalsooni meesha maxay jirtay oo markii horeba taas la isku soo raacay waxa si adkaanayso xasiloonidii iyo is aaminaadii gabadhii way ku si maxay aaminaysaa ninkiina sidoo kale waxaan rajaynayaa insha Allah faa'iidadiisa inaanu heli doono midhiisana aanu goosan doono oo nolosha insha Allah inta hadhay aanu wada wadaagi doono insha Allah dad waxay guursadaan afar xaas marka adigu afar dhaan oo dhan baad heshay ma la oran karaa dabcan ha waxaan oran karaa waxa weeyaan afartii dumar ahaa ama saddexdii kale harsanaaba ayada iigu dhigmaysa haday noqoto maxay dabci ahaan iyo diin ahaan Amiin Dalxa heshiis cusub baad marwadaada cusub wada gasheen guriga iyaga leelaya cusub ma laga yaabaa heshiiska aad gasheen
muddo kadib in dib u cusboonaysiin galo oo heshiiskii dib loo eego? haddaan su-aasha jawaabteeda ku siiyo ma dhici karto horta dhankayga qadarka alla wuu qoray laakiin aniga ka